daruuri u ah oo ku socdo jadwalka maalinlaha sida Soomaalidu u yiraahdo hadduusan lahayn inuusan ka meel gaari karin waxbarashadiisa taasoo ku saamaxaysa in mar walba waxaad qabanayso ama stageskaad marayso ay ku noqdaan kuwo mar walba xaaladda waaqiciga ah ee la socoto oo aad waqtiyaal ku kala samaysato arrinka labaad waxa weeyaan waa waqtiga si wada ognahay adduunku waa awooyaan waa daqiiqado iyo sikimo la isku daray oo markaa saacad noqonaya cumrigaaga maalin walba iyo habeen walba ku sidaysanaya haddaan waqtiga ka faa'iidaysan ma noqonaysa arday naajixa ama طالب cilmi loo baahnaa cilmi si loo baahnaa u baranay arrimahaas waxay ku saamaxayaan inaad noqoto nin gaadhay hamigiisii yahay yoolkiisii ama goolkiisii wax la yidhaahdo oo uu gaadho wuxuu yigsanayay sidoo kale waa inaad noqoto arday mar walba la socdaa xaaladaha markaa jira ama taan waxbarasho ama tan waaqiciga ee markaa deegaankaaga bulshada environmentkaaga ka dhex taagan waa inaad noqoto arday mar walba maktabadda ilaasina yaraan isbuucii 2 maalmood 3 maalmood inaad library-ga tagto ama maktabadda tagto saad u soo qorato waxaan aad baranayso wax la xidhiidha aad waxaad ogaan lahay waxyaabo badan oo la xidhiidha cilmigan aad dalbayso ama aad baranayso marka arrimaha kale loo baahan yahay muhiimka ah waa waxa weeyaan inaad noqoto mar walba qof Ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala way haddaan Ilaahay ku xirnayn oo aadan mar walba salaadii iyo soonkii iyo aadan la imaan yacni waxa weeyaan waxa ugu horeeya fashilka kugu imaanaya ama tabiica kugu imaanaya waa salaada ka tagto ka ugu horeeya waxa weeyaan haddaad salaada ka tagto fashilka ugu koowaad aad gasho weeyaan noloshaada waxaa kugu dhiirigelinayaa inaad mar walba noqoto qof waqtigiisa ka faa'iidaysta oo u samaysta maraaxil iyo hadday noqoto waxa shaqo haddaad hayso kale dadka qaar waxay jira shaqeeya inaad waqtiyo kala samaysato si aad waqti u yeesho inaad waqti gudi wax akhriso waxaa muhiim ah inaad maalintii 20 daqiiqo u yaraan aad wax akhriso si ay noqoto maskax awood u leedahay waxyaabo arrimaha iyo arrimo lamid ah waxay kugu dhiirigelinayaan inaad noqoto taalib cilmi loo baahnaa علمي من كجاري بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته